السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وايد السلام يا حبتي دقالقة. عندما أنت سناب شات كيف لو قريسة. وعندكم السلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم. وحنا وينك هلا ما أنت أهين. تي ولا شيء آمن دول. وأدو جدته. أدو حنوسن. كل بهذا البرنامج اللي ما هيو. أنت عندي لها. فنانتي وينيد. habeen hore studio fadhiyay ayaa yiri maanta arrinka aan dol kaliya fanaanku ma yaalo bulshada Soomaaliyeed buu yaala dadka fanaanka nahay buu yaala dadka aanu mataqaana aanu iyaga wax ku nahay ayuu yaala anagana wuu noo yaala sidoo kale khasab waxa maanta aniga runtii aan dhihi karo ama aan waxayn karo ama aan dhamayn karo mal caafimaad korta Ilaah baa haya azza wa jalla isagana caafin kara isagana waxdila isagana caafiya isagana u baryayna Ilaahay inuu caafimaad degdeg siiyo markuu ugu horeeyo inta Soomaali idinka idin taala waasa idin sheegay waxaan rabaa maanta in laga dhiidiyo in loo istaago aamino koo waxa ugu horeysa maanta dunya waa xira laakiin ducada waa muhiim inaad ducada ku soo kaalmeysaan oo u soo duceysaan marka ugu horeysa in Rabbi Azza wa Jalla uu caafiyo aamino oo sariirta uu ka qaado oo labadeed lugood ay ku istaagto ee caruurteeda maanta guriga ugu tagto horta Ilaahay u bariyo Faatixadan umara waa marka ugu horeysa marka labaad waxa weeye maanta 10 hore maanta kaligeed ku tahay walaalayaal waxaan rabaa aamino waa fanaaniintii kale oo iyaguna xanuunsana waateen u taagnayn waateen wax siinayeen waateen wax waxayna anu Soomaali dadkayga Soomaalida waxaan ku jeclahay maanta ama ku aqaana dadnimo iyo adeeg iyo waxaan ku raadaa dad jacayl baan ku aqaana maanta waxaan rabaa in aamino loo istaago aniga ka kooba adiga ka kooba maanta aamino dol waxay u baahan tahay Ilaahay iyo ummadda ay ka dhalatay ee Soomaaliyeed waxay u baahan tahay waa hal kali oo la yiri lacag bay joogtaa hooyo weeyaan caruur yarar baa ka dambeeya oo shalay aabood dhintay 10 caruur baa ka dambeeysa aamino walaalayaal Ilaahay caafimaad ku bixiya kan maanta wuxuu awoodna ducada ku soo kaalme kan maanta $1 iyo $1 iyo $10 iyo $100 wuxuu awoodna walaalayaal akoonka ugu soo shuba aamina lambar keed waad aragtay fiidiyoga anigu sa u daawaday dhamaantii u daawateen walaalayaal aamina naga xanuunsan tahay maanta dad shisheeye kama xanuunsana maanta waxa weeyaa wixii dhiglo ka awasay maxaan ku dhahaa hooyo maxaan ku dhahaa inuu shaqtaar u sheegtay wixii dhiglo ka aamina maanta dadkeeda u baahan tahay iyo allaheeda walaalayaal waxa loo istaago aamina shalay waan ogaa iyadoo maalin dhakhtarka u tageysay iban Oslo halkan Norway intay imaatay ayaa dhakhtar la galay waa la ogaa aamina maanta sidii ayay ka sii dartay aan ogaa ayay ka sii dartay oo dhakhtarku ururtay Ilaaha caafimaad ka bixiyo marka ugu horeeya caafimaad baa Ilaahay uga bariyaa aamino waa ku jecelnahay 100 adoo la maanta ogahay xaaladda ay ku sugan yihiin waa ogahay fanaaniintu maanta dal iyo dibad inay dayacan yihiin laakiin maanta anaga dawladna kabta ma haysano dawladda maanta xaqa fanaaniintu ay leeyihiin siisa ma haysano maqrib iyo maqshib baa la kala joogaa laakiin maanta waxaan wax ku nahay waa dadka yaga Soomaali ayaan wax ku nahay maanta waxaan ogahay qof kasta Soomaali inuu walaalkii u madax isaarsanay haddii arko marka waxa guntiga gunaanadkii saad shalay madaxa noo saarnaysan ayaa raamaanteeda madaxa iyo majaha iyo inta wax na saarata walaalayaal aamino maanta ay xanuunsanta Ilaahayna waxa uga baryaa caafimaad taam Ilaahay inuu siiyo marka ugu horeysan aad ducada ku soo kabtaan inaan noo istaagtaan dhammaan yar iyo weyn fanaaniinta shicibka dhamaantiin waxaan rabaa wala aamino gabar waxaan ku aqaanaa dabeecad fiican gabar wanaagsan gabar dal iyo dal jecel gabar dad jecel gabar maxaan ku raadhaa ma sha Allah waxaan aaminsanahay 10 aamina maanta hadii jir lahaayeen wax badan isbedel lahaayeen Ilaahay ha caafiyo aamino
walaasha aamina dhool waa kaasaa wixii ciwaan ah iyo telephone numberkeeda qofkii raba inuu codkeeda xaqiijisto inay iyada tahay kaleetana waa kaasaa lambarkaas ayaad garaacaysa